السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada kanalka dacwa tube iyo qisadeena maanta. Qisadan waxa idin la socodsiin doona anigoo Zaki Maxamuud. Fadlan haddii aad channelka dacwa tube ku cusub tahay, rukumo oo subscribe taabo, halkana like saar. Waxaa jiray 3 wiil oo dhalinyaro ah kuwaas oo ka shaqeysan jireen dameero. Dameeradaas waxay dadka ugu soo qaadi jireen alaabta suuqa ay ka soo iibsadaan, waxayna u keeni jireen guryahooda. Habeenada ka mid ah waxay fadhiisteen meel iyaga oo wada sheekeysanaya. Midkood ayaa yiri magaciisu ahaa Maxamed ibn Aamir. Waxaan ku haminayaa in aan noqdo hogaamiye. Maxaad ka leedihiin midkii koowaad ayaa ku yiri waad noqon kartaa hogaamiye, halka midkii labaad uu ku yiri waxa tahay nin dameerla ah in aad noqotid hogaamiye aad bay kaaga fogtahay. Dood kadib Maxamed wuxuu ku yiri midkii koowaad maxaad iga codsanaysaa haddii aan noqdo hogaamiye? Wuxuu ku yiri waxaan ka codsanayaa oo kaliya 3 shay: beer aad weyn oo qurux badan, fardo iyo 100,000 oo diinaar. Kadib wuxuu fiiriyay saaxiibkiisii labaad wuxuuna ku yiri maxaad iga codsanaysaa? Wuxuuna ku yiri waxa tahay nin dameerla ah. Ninka dameerlaha ahna kuma wanaagsana inuu noqdo hogaamiye. Waxa kaaga fudud inaad noqotid hogaamiye inaad samada ka soo dhacdid kadibna ku soo dhacdid dhulka. Haddii aad noqotid hogaamiye waxaad isaartaa dameer, waxaana wajigayga u aadisaa gadaal, agteedana soo istaaji mid dadka u naadiye ama la hadla. Waxaadna ku amartaa inuu yiraahdo dadow ninkan waa masiixu dajaal, waa nin aad u xun. Qofkii la hadla ama la sheekaysta wuxuu mutaysan doonaa xabsi. Waxaa dhamaatay sheekadoodii waa ay naseexdeen. Markii la gaaray salaada subax waxaa soo toosay Maxamed ibn Aamir wuxuuna tukaday salaadii subax. Kadib waxa uu bilaabay inuu ka fikiro siduu u noqon lahaa hogaamiye. Wuxuu bilaabay talaabadii ugu horeysay uu ku gaari lahaa hadafkiisa oo ahaa inuu noqdo hogaamiye. Isla markiiba wuxuu bilaabay inuu iibiyo dameerkiisa, wuxuuna go'aansaday inuu noqdo askari. Wax yar kadib waxaa laga dhigay taliyihii ciidanka ee dawladda Umayyiyiinta. Maalmo kadib waxaa geeriyooday hogaamiyihii Umayyiyiinta, waxaana xilka la wareegay wiilkiisa Hisham oo da'diisu ahayd 10 sano. Waxayna dadka ka hor imaadeen inuu hogaamiye u noqdo wiilkan aadka u da'da yar, waxayna go'aansadeen inuu hogaamiye cusub doortaan. Waxaa soo sharaxay 3 hogaamiye oo kamid ah Maxamed ibn Aamir, waxaana la qabtay doorasho ana ku guuleystay inuu hogaamiye noqdo Maxamed ibn Aamir. 30 sano kadib wuxuu soo xasuustay isagoo ku fadhiya kursigii boqortooyada labadiisa saaxiib ay ka wada shaqeysan jireen dameeraha, wuxuuna u diray mid kamid ah ciidamadiisa uu ugu keeno. Markii ay soo galeen qasrigii boqortooyada waxay arkeen hogaamiyihii Umayyiyiinta ahaana saaxiibkood Maxamed ibn Aamir, waxayna hoos isaga dhaheen iyagoo yaaban waa saaxiibkeen Maxamed. Markii ay hor yimaadeen wuxuu ku yiri ma i garanaysaan? Waxayna ku dhaheen haa, laakiin waxaanu ka cabsanaynaa in aadan adigana garanaynin. Wuxuuna ku yiri haa waa idin garanaya. Kadib wuxuu fiiriyay ilaaladiisa wuxuuna ku yiri aniga iyo labada nin waxaanu ahayn 30 sano ka hor kuwa siman, waxaanu ka wada shaqeysan jirnay dameero. Habeenada ka mid ah waxaanu wada fadhiisanay meel anaga oo wada sheekeysanayno. Waxaan ku yiri labada nin haddii aan noqdo hogaamiye maxaad iga codsanaysaan? Midkii koowaad wuxuu igu yiri waxaan ka codsanayaa oo kaliya 3 shay: beer aad u weyn oo qurux badan, fardo iyo 100,000 oo diinaar. Amiirkii wuxuu ku yiri ilaaladiisa siiya wuxuu iga codsaday oo dhan. Kadib wuxuu milicsaday midkii kale wuxuu ku yiri maxaad iga codsatay haddii aan noqdo hogaamiye? Waxaan ka codsaday in aad isaarto dameer, waxaana wajigayga u aadisaa gadaal, agteedana soo istaaji mid dadka u naadiye ama la hadla. Ku amartaa inuu yiraahdo dadow ninkan waa masiixu dajaal, waa nin aad u xun. Qofkii la hadla ama la sheekaysta wuxuu mutaysan doonaa xabsi. Kadib hogaamiyihii ayaa ku yiri ku sameeya wixii uu rabay ilaa uu ka ogaado inuu Ilaahay wax walba awoodo subxaanahu wa ta'ala. fadlan haddii aad channelka dacwa tube ku cusub tahay, rukumo oo subscribe taabo, halkana like saar, lana wadaag asxaabtaada si dad badan oo looga niyad jabiyo hadafyadooda ay ugu gudbaan carqaladaha hortaagan una go'aansadaan siday u gaari lahaayeen hamigooda. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.